السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمان مواطنين رئيس سوماليلاند meel ay ku sugan yihiin ba sida iyo dibad iyo magaalo iyo da'wada yihiin ba qodobada war waxay ugu guddoontaan ambaliyo qaranka Soomaaliland iyo qarankeena iyo shacbigeenaba guulaha waaweyn u gaadhay walaalayaal hal gandheer kadib maalintii dalkeenu dib u xoreynay waxaanu ka joognaa 4 sannadood afar iyo 30 sannadood iyo 11 sannadood ka horeeyay oo dawladda aynaan aad isugu calool banaanayn aynu ku midaysnayn maamulka oo aynu ka tirsanaynay maamulkaas sidii loogu talagalay loo midoobay inaan loo wadin ka bacdi dhibaatooyin badan hal gandheer iyo qax iyo hawlo badan oo adduun maanta waxaanu joognaa ilaahay mahadi inaynu nahay qaran Soomaaliland oo jira oo adduunku dhammaantii wada arkayo oo inta badan ay la shaqeyso inkastoo aynaan ictiraaf caalami ah wali kursigeena jicida qodobaha ka dhaxaysay ayna fadhiisan waxaanu qabsanay oo ugu horeysa waa nabad dawlad dhisan ciidan dhisan jaamacado dhowr iyo 20 tacliintii oo dhisantay dhaqaale 11 sannadood dawlad xamar la midaysnayn ma jirin shirkado waaweyn oo reer Soomaaliland oo dhaqaale leh mid yalla ba jirtay iyagoo ba sii shaqeeyay waxaanu abuuray maanta shirkado fara badan oo milyaneer qaarna ay bilyaneer yihiin waa dhaqaalaha dalkeena ka abuurnay markii aynu nabad iyo wada jir iyo iskaashi ku shaqeynay waxaanu dhisanay inagoo la ictiraafsanayn oo banka adduunku lacag inoogu lahayd oo aan dawladina waxba inaama ahayn ama deeq inoo fidin marka laga reebo waxay jimcida quruban ka dhaxaysa ugu tala gashay dalalka dhibaataysan ee la yiraahdo gargaarka degdega ah haddana waxaanu dhisanay maanta dawlad dimuqraadi ah 5 jeer oo doorasho qabatay oo ah qof iyo cod oo waliba aad iyo aad oo ah la arkayo sida loo dooranayo qof waliba xaqdiisa ilaashanayo oo ay kuwa yar tahay geeskan aynu deganahay iyo gobolkan deganahay dawlad inta aan la fulisa walaalayaal doorashooyin la qabto laakiin waa qaar cidda markaa maamulka haysa iyadoo ay qorsheyso oo dhammaystir silskeeda laakiin teena qofka mucaaradka iyo ka dawladda hayaa way u soo sharciga waana la isku ixtiraamaa intaasoo doorashooyin galay oo ka mid tahay madaxweyne afraad marka tan maanta doorayta saddex hore waa guul ay gaadhay Soomaaliland oo aad iyo aad u qiimo badan ummaduna ku qadarinayso inaguna aynu ku korray oo maanta aanay ahayn tu loo baqaayo inay ama khalkhal gudo ku burburto ama cad u burburiyo طبعا dawladdu laga dhigaateeda jidka dheeraan soo maray wuxuu lahaa hadimadiisa iyo dhibaatooyinkiisa iyo duruufihiisa maalin walba way joogan duruufahaas in la xaliyo oo laga gudbo waana waxa dawladdu loo dhisto ee aroorba umad qof kasto ama dawlad kasta waagi bariyaba ay leedahay beelaheeda marka hawlaha in hor yaala waa bayro haday mid nabadeed tahay haday tahay mid dhaqaale haday tahay mid siyaasadeed haday tahay mid technology haday tahay mid tacliid waa waxa nolosha halganka socda ee weliga la jiray ayaan ku jiraa laakiin halkan ka soo qaadnay ilaa 60kii ilaa 1990kii waxayna gaaray 1990kii ilaa 2024 dhibaatooyinka inala soo gudbaaday inta ay inala dagaalamayeen kuwa aynu isku afka ahayn isku diinta isku dhaqanka wali aanu waxdanahay oo ugu weyn tahay inay qeynin inaynu ahaan laba dawladood isu yimid oo isku heshiiyay ay u qabaan ilaa maanta inuu nahay gobollo ka tirsan iyaga waana tasarrufka qurmayso maanta
boqol iyo dhowr iyo sagaashanka dowladda caalamka ka jira dowladda qura ee aan ogolayn ee inoogu cadow badan waa taxawar ka dhisan waayo maba ogola inaynu nahay qaran jira iyo dowlad jirta maba ogola waa waxyaalaha yaab kale oo xumaan ay koriyaan mooyaa awanaag koriyeen innagoo waxaasoo dhan soo marray somaliland maanta ilaahay mahadi baynu taagannahay waxaynu maanta joognaa marxaladdii aynu ku dooranaynay madaxweynaha iyo xisbiyada waa hawl culus cadowgeynuna intaa weerar buu inagu haya iyo inayna intaa hirgelin marxaladdaa waxaanu kaga bixinahaa inagoo dhexda xidhanna u midowna horumarka dalkeenna u midowna doorashadu inay hirgasho u midowna inaynu ilaalino oynu difaacna maalin walba weerar baa lanagu soo qaadaya oo shalay ugu dambeysay si aynaan u helin xorriyadda aynu doonayno iyo dimuqraadiyadda iyo inuu qarankeenna sida dastuurka u dhigaya aanu ku dhisno waxaasoo dhibaato oo jira walaalayaal maanta xisbiga tartamaya hawshaa u tartamaya codkiina wuu tartamaya laakiin codkiina waxaan doonayaa inuu noqdo mid dalka hore u maraya ee aan dibidaabiye u keenin ama aan licliicin muwaadin codkaagu maanta labuu kala dooranaya wuxuu kala dooranayaa xisbi kulmiye la yidhaahdo oo gaadiid qaad aan ahayn ee weligii iyo allihii joogay somaliland madaxdiisa hoggaankiisa fulintiisa golihiisa dhexe dhammaan inta u badan boqolkiiba 90 ay yihiin dad dalka xogaal ah waxay soo mareen oo ay garanayaan halkii laga soo bilaabay ilaa 60kii intooda badan way garanayaan sida wax u qaldameen markii dambe la saxayo wixii dhibaato loo maray way ogeen kolba heerkii la soo maray waxa kale ka wada ahaayeen foorhoraadka dadkii xorriyadda markii loo dagaalamayay foorhoraadka ka ahaa kow safka hore ku jiray oo ilaa dalka la xoreynayay wixii hawl iyo dagaal iyo dhibaato loo soo marayna ka qayb ahaa weliba qaybta ugu weyn ka qaadanayay waxaa kaloo og yihiin sidii loo dhisay dalka oo burbursan oon jeel lahayn oon biyo lahayn oon lahayn dhakhtar aanu furayn oonu iskuul furayn dadkii ka soo qaaday ee intaana hoggaan foorhoraadka ka ahaa maamulkaa in unug ismo weeyi kulmiye madaxdiisa iyo murashaxiintiisa kuwii hore u sharaxnaa kuwa imika u sharaxan iyo kuwa u sharaxan doonaba kulmiye wuxuu hayaa sidii somaliland ay hore ugu soo martay 40 sannadood siday dagaalkii xorriyadoonka u soo gashay ugu guulaysatay waxaa kaloo arkaya jidka loo maraayo guusha ah in dalku noqdo mid adduunku ictiraafsan yahay oo xorriyadiisa helay xisbiga tartamaya midna taama haya maanta raadkeeda waayo xisbiga tartamaya kuwa ugu cadcadi weligood maamul dowladeed may qaban murashaxooda marka laga reebo baarlamaanka ceeb maha waa anigu maaha halgeekii wuu qayb galeen dhibaatadiisa wixii loo soo maray ma oga sheekay ku tahy markaa weli lama shir rabin dagaalkii xoreynta laguma shir rabin oo kuma shir rabna dhismihii qaranka la dhisaayeyna ma joogin oo kuma shir rabna oo qayb kama qaadan oo ma oga waarnimadeedii maanta hawsheeda waa ku layri oo mustaqbalka halku ka bilaabaya intuu baranayo qaabka dowladda ay waqti ku lumaya xorriyadda in qarankani isticmaalka qolada ka dhaxaysa ka mid noqdo oo kursigiisa helo kulmiye ayaa meel walba u garaacay soo dhaweeyay 3 arrimood oo aad ka wada warqabtaan oo markaad ka tagina waan idin soo xusuusinaya kow kulmiye wuxuu qarka u saaraa in la ictiraafo maalintii kuna kale u tagay ee madaxweynahooda aniga oo la fadhiya oo idina markaad ka ahaydeen soo dhaweyntii qarannimo lagu soo dhaweeyay inay dowladda xamar cilaaqaadka u geysay dacwadna ay ka furtay African Unionka iyo sibcadda qolka hayso kii labaad wuxuu ahaa Kenya kuwa Kenya oo idina awood ogtiin markaad ka tiin halkii ay la gaadhay sida Kenya oo kale sida ay kuna kariyo kale waa taa ogeydeenoo inta la dacweeyay
أي علاقات كان حاول شرط يعني waa maxay ninkii aynu inagu laba dawlad dhexdii u tagnay oo leh isagu dawlad ma aha ma noqon kara anun ba ah hada shuraaka waxan shirkadana way kacday dawladdan ku way duntay marka duntana waa dhan buu dhaqaaqo u shaqatay nin waliba halkii xorriyadda isticmaalka uu ka qaatay ku noqon taana waalidi tasdaxaad waa MOU wax badan ayaa inaga xiran oo hadii aynu saxeexno waa ka koobaade waa dawladaha Afrika ugu weyn dhaqaale dad iyo ciidan waa dawladda mushaarka ma inta la jaarkay ku wareegsan Afrika oo dhan nin waliba wuxuu kaambeyn ku jiraa inuu Ethiopia wax la qabsado khayraadkeeda iyo baahideeda inuu wax ka qabato la baacishayso dhaqaale la haato wax la wadaagto waa talaabo horseed ku karo marka MOU waxa koow ka ah in la helo اعتراف ay Ethiopia dawladda weyn ee gobolka ay اعتراafto Soomaaliland inagoo aynu siino marin biyood meel dekad ah oo ciidamadeeda bad ku soo xidhaan dekada berberana iyadoo u dhisan qaybta maanta joogtana inaynu dhammaan hawlgelino laabna aynu u dhisno dhaqaalaha ka soo baxaya waa ka aynu u baahanahay hawlaha degdega ka baxayno ay ka mid tahay shaqo la'aanta dhalinyarada barnaamij tijaabo ah oo aynu tijaabinay oo ahaa shaqo qaran oo duruufo dhaqaale u joogsaday waxa weeye maanta waynu haddii aynu اعترافka Ethiopia ka helo oo aynu saxan insha Allah uu dhow yahay muuqdaa waa maqlaysa ra'iisul wasaaraha maanta Ethiopia ku hadlayo oo lahaa haddaan saxiix waayo aan waxta carruurta saxiix doonto marnaba ka harmaan marka saddexda jeerba mid walba si looga meedhalinayo iyo kuwa kale la doonayaba kulmiye wadooyinka uu haya xisbiga tartamayna la wadaaga sidaa darteed muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa oo soo jeedinayaa inay u codeeyaan xisbiga kulmiyana inuu xisbi ahaan soo baxo murashaxooduna madaxweynaha ku soo baxo waa codsigaana waxaan idinku soo waynay wixii aanu soo qabanay iyo wadada noo muuqata baahiyaha saan u arkayno sidoo kale horeynayaan mid waliba hadda codkaagu haddii aad nasiiso wuxuu mudnaanta koobaad ka dhigaya اعتراafka wuxuu mudnaanta labaad ka dhigayaa shaqo la'aanta in laga baxo wuxuu mudnaanta saddexaad ka dhigayaa inuu dalku amni noqdo gudihiisa oo qof walba muwaadiniba uu nabad ku seexdo isaga iyo hantiisa uu nabad soo tooso codkaagu wuxuu caawinayaa in dalka uu lahaado ciidan qaran oo adag oo aan cid ku soo gudbin codkaagu wuxuu naga caawinayaa oo uu gaarayaa in caalamku qadarin iyo ixtiraam u yeesho Soomaaliland wuxuu codkaagu naga caawinayaa in wiilka Soomaaliland iyo gabadha yar ee Soomaaliland ay adduunka ku maraan baasaboorkooda iyaga oo xor ah oo qabkooda wata oo aan cidna gacmo hoorsanaynin codkaagu dadku wuxuu tarayaa in dadkeena maanta qofkii xanuunsadaba dhakhtar dibadda loo qaadayo ee kharash arta ku baxayo ee aan dadka awoodda u lahayn in uu qofku dawlad buuxda oo caalamiga ku helo boqolkiiba 90 cudurrada in lagu daweyn karo Soomaaliland inta waa qorsheedu waayaan waxaad ka akhrin kartaa manifestada xisbiga muwaadin maanta codkaagu yaan meel qaldan ka marin oo aan ka marin nin aan haddii dhibaato timaado xalli karin oo waxaad ka fikirtaa sida dhibaatooyin badan u dhacaan ee aynu soo maray ee xukuumaddan ka dabaalatay iyo xisbiga kulmiye kow waa duufaantii saqal waa ogeyde dalka wixii reero dhan oo degan la waayo oo inuu qori ka soo haray gurmadkan ku galay waa ogey ee shacabka dhan ka galay aan isku kaashan koofirkii oo adduunka ku qayriyay oo xanuun adduunka dib u riyay wax badan ka bedelay waxaan ka mid noqonay dalalka aad iyo aad ay ugu yartahay dhimashada uu ku sameeyay iyo intaasoo taageerada loo tirnay inaan dhaqaale lahayn in alla ina ictiraafsanayn waxa la akhriyay haddana xukuumaddu iyo shicibkeeda la tashanaysa adeegsanaysa
sidii aynu uga baxnay ilaahay inuu gargaaray aynu caqligeena u isticmaalay ee markaynu iskaashana uga baxnayna goobjoog baa u ahayd labadii dab ee labadii suuq ugu waaweynaa ganacsiga Hargeysa iyo Jara ka dhacayna waxaa ilaahay mahadiya ilaa rikoodkeeda haysaa xukuumad ahaan habeenkii markuu dhacay aroortii halkii loo jiray civil centerka intaanu soo taageereen dadka ka hadalay inaanu ku nidi ilaahay iyo xooggeena iyo maskaxdeena aynu ku dhisnaa cidna bariimayno waayo bari aad inoo dheesbaysa halkaa waxa ilaahay mahadiya maanta in iyadoon cidina naga caawin wax buuro la sheego aan la naga caawin qolada xamar joogta lacag ay lahayd jimciyadda qorob ka dhaxaysa oo loo qoondeeyay wasaaradda maaliyadda Somaliland caalamku ugu deeqay inay ku dhisaan capacity building oo laba saddex sano isku haysanaa xamar waxa la qaadan maynay ma qaadan ayaa loo soo wareejiyay oo ilaahay waxaan ku wareejinaa Somaliland oo dhaqaale badan ee dibadda naga soo galay baa imsirkeen wax kasta aan saxanaanayno wax kasta la seefno lacagtii ay iyagu dhexdooda laga soo ururiyay ku soo deeqeen iyo tii dawladdu ku dartay waxa ilaahay mahadiya dadkii hantida ku lahaa dhismaha ee qof walba in nus dawladdu bixisay sidii loogu soo gurigiisa halkiisa walacagtii baa imsirka iyo dawladdu ay sugayeen iyo dadkii kale ee qaadaanka bixiyay ama qurujoog ha ahaadeen ama jaariyaha dawladda ha ahaadeen xoolaha bixiyeen oo si wacan loo maamulo maanta suuqa aragteen ee quruxdiisa aragtaan oo aanay dadka qaarkood hoosayna Soomaaliya saa u dhisatay ayay u dhisatay waa aragnimo waa si aad looga baxa waxaan isleeyahay anoo lahayn wadada tarbisa oo aad tarsanaysaa wax ka sheeg ilaa dadka maanta tartamaya waa aragnimada lahayd marka waxaan codsanayaa codkaagu inaad ku hubsato xisbiga kulmiye iyo murashaxiisa oo madaxweyne qaranka oo aniga oo idla hadlaya kulmiye iyo murashaxooda uma doonayo codkiina inuu dana gaar uga faa'iideysto uma doonayo inuu magac ku helo oo madax baan noqday u kordho anigu maanta dee ana waa jooga inta bilaad magac iyo ama la ixtiraamana waan hayaa qofna fadhiga uu noo kacaa dadkuna abaalka ma qariyaan laakiin maanta waxaan leenahay marxaladda aynu joogno xisbiga qura ee ka bixi kara hawsha lagu amri kara waa kulmiye ma hayno samaanayno ma hayno foos calaasayno waa runta Allah oo inta aad soo tigtaa saadaradeed muwaadin codkaaga maanta u codeey nabadgelyada gudaha u codeey iska celinta caabinta cadowga u codeey اعترافك u codeey shaqo qaran iyo in shaqo loo abuuro u codeey in dhaqaale dalkan loo abuuro oo loo soo kordhiyo nuxurka aan maanta ii soo jeediyay waa doorashada iyo xalkeeda waxaad u codeysaa nabad waxaad u codeysaa in doorashada inuu horumariso aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa dhammaantiin waa inoo guul iyo su'aalaha horumarka doorashada nabada oo hore inoo qaada. Assalaamu calaykum.